Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Maalin wanaagsan khiyaarta wada nagala xirta halkan waa barta YouTube-kan kulana maalaba nagala socotaan. Maantana waxaan kusoo qaadan doonaa kiiska Ikraan Tahliil oo weli xaaladiisa meel xun marayo. Hooyada dhashay Ikraan Tahliil waa shalay hadashay ay tiraahdo waa in kiiska gabadheeda wax laga qabtaa wada hadal isheeg kama gelin lacagna kama qaadanin. Gabadheeda xaaladeeda si degdeg ayaan ugu baahanahay. Dowladda Xashi Maxamuud ayaana ka rabaa taliyaha Nisa iyo Xamse Cabdi Bare iyo Xashi Maxamuud inay go'aan ka gaaraan kadibna caddeyn sheegaan gabadheeda meesha ku maqan tahay. Arrintaasi kiiska Ikraan Tahliil culeys ayuu noqday. Dowladda hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa lagu eedeynaya, taliyihii hore Fahad Yaasiin Xaaji Daari ninka la yiraahdo ayaa lagu eedeynaya gabadhaas in asaga gacantiisa ku maqan tahay. Asagana markii xilka uu ka degay waa too hadlay oo yiraahday gabadhaas waxay ku maqan tahay Mahad Salaad iyo Alcadaala iyo Rooble. Marka kiiska Ikraan Tahliil markii kambeynka la galayay nimanka la yiraahdo isha badbaado qaran kambeyn ay ku galeen haba ugu darnaadaane Xashi Maxamuud iyo Mahad Salaad iyo Cabdiraxmaan Shukuur aad ayay kambeyn ugu galeen. Xashi Maxamuud kambeyn markuu ku galay oo gabadhii arrinteeda oo doorasho ka dhigtay jarjartii wuu ku fuulay doorashadii waa uu ku guuleystay. Madaxweynaha Soomaaliya ayuuna noqday hadda uu yahay. Marka Mahad Salaad sidoo kale asagana xil ayuu dowladda ka helay, xildhibaan wuu noqday. Kiiska Ikraan Tahliilna waxba kama qabanin. Marka hadda waxaa leeyahay xaaladii sidii hore way ka bedelan tahay. Kiiska Ikraan Tahliil sidii hore ma aha. Taliyaha Nisa Mahad Salaad wuxuu go'aan ku gaaray leeyahay in kiiska Ikraan Tahliil la laabo oo asaga dhanba meesha lagu laabo sababtoo isqabqabsigiisu uu daba dheeraaday. Xal iyo caddeynna uma hayo. Marka xalka kaliya ee dowladda Xashi Maxamuud ay go'aan ku gaartay waxay noqotay in kiiska Ikraan Tahliil la laabo. Hooyada hadda way soo laba kaclayso way qaylisay. Arrinteedana wax faragelin doono iyo wax dib u fiirin doono lama oga. Laakiin waxaa la leeyahay Xasan Sheekh Maxamuud iyo ninka la yiraahdo Mahad Salaad waxay go'aan ku gaareen kiiska Ikraan Tahliil in la iska laabo oo dacwadiisa meesha lagu joojiyo sababtoo ah kiiska Ikraan Tahliil meel lagu saleeyo waa la waayay. Marba meel ayaa loo duulduuliyay. Marka waxaan is leeyahay mar walba kiiskaas marka faraha lala galo baaritaankiisa ayaa culeys keeno. Gabadha qaabka loo dilay iyo sida ay ku baxday qof caddeyn kara ma lahan. Marka qofkii oo sheego gabadhaas arrinteeda oo saxda ah sheego oo meesha gabadha ay ku baxday caddeeyo asaga ayaa dembi loo qabsan karaa. Marka waxaa leeyahay maadaama aad sheegtay caddeemihiisa lagaa rabaa, dadka ku sheegtan inay maxkamad soo saartaa lagaa rabaa. Marka kiiska Ikraan Tahliil kiis sahlan ma aha. Shacabka Soomaaliya way isweydiinayaan sababta Ikraan Tahliil cadaalad u heli laadahay. Laakiin kiiska Ikraan Tahliil wuxuu salka kula jiraa dad waaweyn oo macnaha hadda aan waxba laga qaban karin oo isheeg rag sarsare ah. Marka raggaas sarsare haddii oo lagu eedeeyo kiiska iyo qaabka haddii la sheego waxaa laga baqayaa caddeyntii in qofkaas la weydiiyo maxkamad soo saar in la yiraahdo ama isheeg dadkii markhaatiyaasha inuu keeno. Marka kiiska Ikraan Tahliil wax looga wada baqayo wax kale ma aha. Waxa waaye waa in isheeg caddeyntaas haddii la helo dadkii lagu helay yaa maxkamad saaraya, yaa awood ciidan iyo awood military iyo awood madaxnimo iyo awood Nisa yaa ku saari karo oo isha ku waxayn karo. Marka sababta looga baqayo kiiska Ikraan Tahliil dowladda hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uga baqday, dowladda hadda joogtana uga baqday waxaa waaye waa awood qabiil. Gabadhaasi dadka dilay iyo qaabka loo dhibaateeyay shabaab shaqo kuma lahan laakiin waa dowladda dhexdeeda. Laakiin waxaa la isweydiinayaa qofka uu yahay sidee loogu qaadi karaa isheeg jawaabihii saxda ahaa loona marsiin karaa wadadii loogu talagalay oo Ilaahay jideeyay. Laakiin waa suuragal ma aha. Marka dadka waxa sida aragtidayda iyo saxaafadda muddo fara badan aan ku dhex jiray aan ka qaatay waxay ila tahay kiiska Ikraan Tahliil inaan banaanka la keeni karin sababo qabiil darteed oo dadka gabadhaas dhibka u geystay arrimo qabiil ay dabada la gelaysaa. Marka hadda ka hor Cabaas Siraaji yar la yiraahdo wasiir ahaan jiray ayaa la dilay magaalada Muqdisho. Ninkii dilayna lama dilin ilaa iyo hadda. Marka taasoo kale ayaa laga baqayaa oo arrinta inay qabiil dabada la gasho. Marka aad iyo aad looga weecanayaa sababta Ikraan Tahliil kiiskeeda loo caddeyn lahayn waxaa waaye dadkii dilay yaa soo dili karo oo yaa kiis ku qaadi karo. Marka Mahad Salaad asaga waa lagu eedeeyay ayagana waxay ku eedeeyeen Fahad Yaasiin. Marka lacalla kaba soo qaad Mahad Salaad ayaa dhibkaas gabadha u geystay yaa maxkamad Mahad Salaad saari kara maanta oo kiiska Ikraan Tahliil ku qaadi kara waa maya. Rooble iyo dadka la yiraahdo isha Alcadaala ayaa ku qaadi kara waa maya. Fahad Yaasiin Xaaji Daari ayaa maanta maxkamad saari karo cadaalad geyn karo ilaa nin wadanka ku sugan ba ma aha waa maya. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweyne 5 sano dalka ka soo ahaa kiiskaas yaa ku qaadi kara waa maya. Madaxdii ka horeysay oo dhammaan oo dowladda ka soo mid noqday yaa ku qaadi kara maanta kiiskii gabar la dilay yaa caddeynta inta ku keeno maanta maxkamadda saari karo oo soo xiri karo. Marka kiiska Ikraan Tahliil waxyaabaha lagu weecanayo waxyaabahaas ayaa ka mid ah. Ikraan Tahliil kiiskeedan hadda waxaa leeyahay
wuxuu gacanta ayuu ka baxay waxayna go-aan ku gaareen dowladda xashin maxamuud oo shalay u qeylinaysay in dhibaato loo geystay gabadhaasi si cadaalad darana lagu dilay waxay noqotay doorasho raadis iyo xil ku raadis ayayna ahayd jarjarteena way ku fuuleen wayna ku gaareen laakiin maanta gabadhii uma maqna cadaaladeediina lama hayo marka mahad salaad go-aankiisa rasmiga waxaa leeyahay waa inuu kiiskaas la laabo dib dambena aan looga hadlin hooyo maxamuud qaali maxamuud gahad hadday rabto haska qaylisa idaacadaha ka hadasho qof danayn doono ma lahan haddii waxba aan isbedelin maalmaha soo socda ama bilooyinka soo socdeen waxba isbedelin laakiin qof la hadli doonto ma lahan waxaa lala yaabaya shalay maxaa cabdullaahi farmaajo kiiska grantel sababta ugu aamusnaay waxaa lala yaabaya faad yaasiin xaaj daar sababta kiiska grantel lagu aamusnaay maanta haddii isla sida shalay raggaas ay qaldanaayeen oo kiiska grantel sababta ugu aamusnaa la isweydiinay maanta maa la isweydiiyo xasan sheekh maxamed iyo xamse bare iyo ninkii la yihahdo maxamed salaad maxay ugu aamusan yihiin kiiska grantel waa isla sidii wax farqi u dhexeeya ma lahan kiiska igraan tahliil dadka geystay iyo dhibaatada u geystay laguma qaadi karo kiiskaas qaab qabiil iyo is-ugaarsi ayaa ka dhacayo dad intaan ka badan ayaana dhimanayo sababta kiiska igraan tahliil loo cadeyn lahayn waa midaas adiga oo macnaha daawanayo naftigaada ay dhegeysanayo waa inaad fahantaa kiiska igraan tahliil meel laguma salayn karo waxaana meel loogu salayn karin waa cabsi ka jirto dadka dhexdooda marka haddii shalay marka taliyaha nisa oo booskii uu joogo maanta mahad salaad oo faad uu joogay oo ka aamusay maantana mahad salaad uu ka aamusan yahay maxay ku daraysiin kartaa adiga la rabaa inaad caqligaada kaashatid maxaa cabdullaahi farmaajo shalay booska uu joogay kiiska igraan tahliilna hal maalin aan ka hadlin oon soo hadal qaadin maanta waxaa taagan xasan sheekh maxamuud maxay ku daraysiin kartaa waxba isheeg inaad garataa la rabaa oo aqligaada kaashatid sidii waay maxaa cabdullaahi farmaajo inuu xafiiska joogo iyo inuu mahad maxamed salaad booska uu joogo hadda taliyihii nisa booskiisa faad yaasin uu joogo wax farqi hadda udhexeeya sheeg wax farqi uma dhexeeyaan waa isla sidii ra-iisul wasaare xamse cabdi barre booskii wuxuu joogaa rooble maanta kama hadlayo kiiska igraan tahliil hal mar ma soo hadal qaadayo marka maxay kula tahay wax isbedel ah oo dowladii hore iyo dowladdan udhexeeya ma jiraan kiiska igraan tahliil sababta looga baqayan waa sababtaas adigana waxaa laga rabaa qof bini aadan ayaa tahay inaad aqligaada kaashatid kiiska igraan tahliil qofkii dhibka geystay hal iyo laba iyo saddex ma aha dad waaweyn ayay dabada la gelaysaa dadkaas markay dabada la gasho adigana aad cadayso in dadkaas ay gabadhaas dabada kula jirto waxaa lagaa rabaa cadeyntoodii waxaa lagaa rabaa inaad dadkaas xukun ku fuliso waxaa lagaa rabaa dadkaas inaad soo xirtid marka howsha howl sahlan ma aha sababta kiiska igraan tahliil looga cararayn waa midaas dowladda xashin maxamuudna hadda go-aan waxay ku gaartay kiiska igraan tahliil in la laabo oo aan dib dambe looga hadlin dib dambe layskaga wareysanin oo wax igraan tahliil la yiraahdo gabar hore u dhimatay oo liiska ka baxday bis laga soo qaado oo aan laga soo qaadinba wax kaleeto diyadeedii iyo waxeeda laga wada hadlin ishay qaabkii loo dila laga wada hadlin qofkii wixii o dhanba aan meel lagu salaynin ayaa laga soo qaadayaa sababtoo ah dowladii hore sidii wadadii ay martay dowladdaana mareysaa marka haddiiba labadii dowlad ay isku dhinac marayaan waxaad dareemi kartaa miisaaniyadda iyo culeyska iyo cabsida ka jirto kiiska igraan tahliil mid sahlan ma aha cabsi aada u weyn ayaa ka jirto kiiskaasna kiis sahlan ma aha dadka dhammaantoodna way ka baqayaan sababtay ugu baqayaanna waa idin sheegnay marka adiga qofka bini aadanka waa inuu tusaale qaataa ama aqligiisa cabiraa marka u malaymaayo kiiska igraan tahliil cadeyn in loo heli doono dowladda horena uma helin dowladda hadda joogtana waxay go-aan ku gaartay kiiska in la laabo dowladda horena waxay sidaas oo kale go-aanka maxkamadda go-aan ku gaartay in kiiska la laabo marka kiiskaas sababta loo laabayo adig waa dareemi kartaa wax badanaana la qarinayaa qof banaanka keeni karto kiiskaasna ma jiro marka kiiska igraan tahliil halkaas ayuu ku dhamaaday baalkaasna waa la laabay marka idinkan waa ku mahadsantihiin la socodkeena barnaamijkeenan waxaan la socodsiin doonaa wax walba oo ku saabsan kiiska igraan tahliil iyo wax walba oo caalam ka dhaco insha allah hal idin la socodsiin doonaa anagoona wax ka been sheeginin aan qof gooniyan u eexanayn waxaan idin cadeynaynaa in dowladda xashin maxamuud iyo dowladda maxamed cabdullaahi farmaajo kiiska igraan tahliil isku meel ka wada istaageen haddana kiiska igraan tahliil la laabay waa mahadsantihiin kulankeena dambe oo xiise leh sidaas iyo nabadgelyo